waxaad sheegtay dowladda dariska ah inay ka wada hadasheen inay idin garnaqaan dadka Soomaaliya laakiin dadku intuu muuqatay marka laga hadlo labada dowladood waa muddo ka soo baxay waxay muddo aad u kala duwan Itoobiya kale waxay toos u sheegtay inay jamhuuriyad yihiin Djibouti waa muddo waxa ka muuqda inay idin arkaan qayb ka mid ah Soomaaliya arrintaas adiga muxuu muuqdaa arabka marka loo eego sharciga guud dowladdu waxay u arkaan Soomaaliya ka tirsan wali sharciga ku weynaa kala bixi dowladaha iyo dadku marka hadayaan waxay raacaan waxa la yiraahdo sharciga caalamka ama dawladka dadka uurkooda waxa ku jira waxay maagan yihiin iyo waxa sharcigu farayaan waa kala jaad labadaba waxay noo aqoonsan yihiin inay wali ahayn dal ictiraafsan yahay inaga u halgabanay ictiraafka laakiin sharciga muddo waxa hor yaala dowladda Soomaaliya qura ictiraafsan marka labaduba halka waxay u baahan yihiin inay noo ka hawlgalno inay noo ictiraafaan qaran oo garta qaataan waana wadada socono كل جودة بيضة كان في فرق تربية وكل حافظنا عليه كل شيء جاي أمين هذا شيء قضية الشمال سياسية وهم الضمانة أمك يمكن كريس شوية لا يوجد يوجد أريم هذا فاهم كسبت الصوت ما كنا نسوون من ذكر نقول مش الشروط دي أنا بقول على الله ترى لما سياسة الشمال كجودها واحد كهذا الشيء نظام حسبية واحد يجلس بالوطن إن نشكو راس إنسان يعني حسب الوطني طبعا إن حلقي الله كيف وحكي نكيم نحكي وحسب حاجة كارهان أتكو إذن شفتين إنه تاجروا سبلوين حسب الوطني يبدأ كمان تاجروا يعني نبغى حسطان إنه يسبلوين كأهين طبعا تلوم الهوينا يلفت بالفافين كبير وحنو دورنا إذا نشارك كمبرر كبيرورا كرو ريم يلا مرينات مركا دورك شاركنا إيجاد EU European Union waa la socon doona laakiin waxaan u baahanahay inaynu garteeno meel u mar markii aan rooyn halka u markaaba noqotay waxaan isku haysanaa Soomaaliya la ictiraafsiyada dawladda tiriye waana waxaan ku doodaynaa ma aha waanu ka soo goonay Soomaaliya xeerka EU waxa lagu wada joogaa u dhigaya xadadka Afrika ha ahaadee kuwa isticmaalka waxaan ku doodaynaa qolada Muqdisho gardaran oo xeerka Afrika jabinaysa oo anaga ku joogna xadadkii استعمار كتير وحنور القرمل هي مش هستيرتها ثلاثة مرة تقولين مرة كل مية يعني وك همك عرنا يما أنا أوران بيرن أمبا يضل بقى قريب كم من الصومال اللي بقى ريحهم حاشا تسوى الدستوري وحروران هذا الشراء واحد شراء سياسيين أشخاصة أو كلهم لحمر أو تري أو كسرنقي حزب البروي تجا marka kamida ashqaasta waador iyo waxay duriyeen laakiin xeerka dimuqraadiyaddu waxa weeye mardu shirka dhamaaday oo xisbiyadu soo haneeyeen kambeekaas uu lahaa annagu imka ummadda wadani iyo madaxdooda niman Soomaaliland darisa oo taariikh wanaagsan ku leh oo halgalkii qaybta ugu fiican ku leh oo muddo kala oo dalka qaybtooda aan u aragna nin dafir ma yata laakiin shakhsi hadduu meel tagaan wadan birta xamarta ama aan dambi galada shakhsi waa la qaadi karaa marka haddii shakhsi oo la soo qaado qaran lama soo qaadin cid lama soo qaadin marka waxaan arkaa inay gabtahay inuu shakhsi uu reer ku golgasho waa qalad taagan hadda waa tuqraq waari dhici jirtay oo Puntland iyo Somaliland way in badan bay qoriyay soo qaateen laakiin markay meel gaadho madaxweynayaashii Puntland iyo madaxweynayaashii Somaliland baa wada hadli jiray waana la joojin jiray colaadda talaabada adag ma qaado ma wada xidhiidha marna Cabdiweli ma waxaase in badan oo kala dam qaaday qoladan hay'ado badan iyo ambassador badan baa isaga la hadlaar yaraa hadlay waxaan isku afran laanahay anigu waxaan taaganahay Cabdiweli muxuu ka rabaa tukarraq anigu xadkii Soomaaliland baan taaganahay oo 7 kilomitir hadhay isna wuxuu taagan yahay maxaa tukarraq loo yimi qoladan dhexaad saarintaa way fahmi kari waayeen waxaan isku haysan waayo anigu kabada tukarraq xadkii baan ka hadlaa marka uu sabab aan anagu hadli karnaa oo deema taal in badan baa loo kala dab qaado hadal telefoon qolo walba ila soo hay'ad waxa ugu dambeeyay hay'adan maxaa la yiraahdaa Maxamed Cabdullaahi Umar ayaa laba goor iyo ula soo hadlay labada goor waxa horta ha ogolaado inay Soomaaliya jirto xadkii Soomaaliya uu ku jiro oo 7 kilomitir hadhay isna wuxuu taagan yahay tukarraq waa Puntland marka baan ku hadlay joogo doorashadii kadib soo si kala aan dhigay dadka badan baa aaminsan in xilligan lagu kala qaybsan yahay oo bulshadu laba kala jabsan tahay amba jeeganaha lagu sheego amba giraanaha lagu sheego
madaxweynaha ay dadkaas leeyihiin miyaan inuu ka howlgalaa in arrintaasi isla markaana wax ka qabto bulshadana isku soo dhaweyn talabaad madaxweynaha Soomaaliya waxa tilmaamay inaad dadka telefoonka wada hadasheen wataana dadka u biyaa sida horta telefoonka war oo kala dab qaado annagu ma hadlo waxa weeyaan hablo waxa suulaya adna waxa hadlaa waana tii arrimka su'aasha ka jawaabado haddad ku waxwada markay ku heshiiyaan nuxurka laga wada hadlayo nimanka muqdisho jooga ma aqoonsana inay Soomaaliya tahay qaran jira oo xadkii mustaqbalka leh annagu waxaan arkaa nin dalkiisa gudihiisa lagu fargeliyo leeyahay dhaqaaq marka cidda noo kala dab qaadaysa laba qolob la hadlaya waxa lagu heshiin lahaa qodob qolada ajnabiga mar walba waxay taagaysaa ee Soomaaliya sharci mid uu ka dhigaya ee midkii wanagi burbureediina qaran kala dhasay kana baraadka hada arka weey marka wari waa jira dabaqaad qolada isna wuxuu heshiis ku yahay sheegay farmaajo ama aan laba qolob ballan qaaday oo kiit ninkii UN ka dhaxay aan u ballan qaaday in aan wada hadalno oo nala dhexdhexaadiyo oo qadiyada Soomaaliya Soomaaliya ka dhaxaysa laga wada hadlo qodobka isna wala keenay ana diyaar baan lahay qaraar baa haddana cid walba xalay anagu wada hadal baan xal ku doonayna Soomaaliya hadal bay xal ku doonaysa kaasaan taagana nina ku duuli mayno ninkiina soo weerarna waxa ay Allah ka alfaabay noqon doonta qodobka kala qashanta hortee anigu waxaan ka qabanaya waxaan wada hadlo waa xisaabta reer ka tagno axsaabna axsaabta mucaaradka markaanu isqabano dulqaad iyo garowshiya xalka anoo baa axsaabtana wari intay yimaadeen labada xisbi ama publican ama midaha ay soo mareen ama toos intay yimaadeen imay oran waxay xasal laga tayo ka tabanaa waxa bedel gariil baa madax xaruye laakiin ashxaasta suuqa ka hadlaysa iyo kuwaasi anigu ay uga jawaab karo anigu qaran kooda ka masuula qaran kale maanta dhex baan taagay kulmeena ma wadana ma qaran kooda kitaaba gacanta la saaray dhex baan taagay cidda aan u wada hadli karaa siyaasi wax ka hadli karaa waa xisaabta qaranka marka xisaabta qaranka ee mucaaradka ahayd iyaga tirada sugay haday dhaliilayaan haday la garnaqsanayaan haday way tilmaamayaan inta waa diyaar baan marka waxa la kala qaybsanaanta ashqaas iyo kooxo iyo reeraya halka way tiraysaa wargeedba dadku waxbay isku kala hayaan laba dukaan isku xigaays iyo laba reer beeray ku marmayo labada barkad ku marmayo oo laba wado ku taas waa nolosha caadiga waana waxaynu dawladdu u samaysano waa inuu had iyo jeer xal u helnaa marka dadkooda marka midna waa maamul waa administrative midna waa political wixii political xisaabtahay maamulka wasaaradda dakhliga oo dal isku qabsaday ceel baa isku qabsaday laba nin baa isku gafay maxkamada waa maamul marka political issue ay xisaabtii qaranku ila timid oo ummaddu ku qaybsatay hadaa haysa soo sheeg midina kuma arag toosna xisaabtii ugu weyn in xukuumaddu ay isla garatay in warbaahinta madaxa bannaan aan xog la siinin warbaahinta dowladda oo keliya mas-uuliyiinta la hadasho arrintaasina dastuurka Soomaaliland iyo xeerka saxaafadda ku hormara ma ogaan karnaa madaxweyne aragtidaada arrinta ku saabsan midda kale Soomaaliland xukuumaddii ka horeysay madaxweyne Sinaayo waxay heshiis la gashay imaaraadka oo saldhig militari barbaaraysay wararka ugu dambeeyay soo baxay waxay sheegeen xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi inay ka baxdaan ama way ka baxaysaa ta hore wuxuu sharcigu dhigayo istoor ama xeer ay man raacayna annagoona lagu amray oo noo doorto noo xil saaray inaanu sharciga ilaaliyo ka dhifmin marka wixii sharcigu dhigo iyo wixii aan inagu koor ku heshiino ayaan ku socon doonaa wixii aanu kala tirsanayno annagu saacad u dhigtay ma qabno wasiirkuna taa xukuumadda iyo annagu waxaanu qabnaa inaan saxaafadda si wanaagsan ula shaqeyno saxaafadda xukuumadda marka ay gaar tahay wixii aanu siinayna anaga inoo taala waxaanu bixinaa halkaynu geynaa laakiin saxaafaddu waa sharci annaga u baahan saxaafadaan annaga dhibeynayna xataa dhaliishiinu waa faa'iido muraadda xagga dambe ninka ku saxaawo oo tolnimada waryahoy shaarka xidho bukaa jeexan haddaad tirahdaan waa gola mucaarida waa soo ahaan jiray inta saxaafadda waa naqaanaa ha nooga biqitaa waa safarayna haddana safarayna waa isla eegi doonaa tasaldhiga militariga ee la siiyey imaaraadka dowladda horgashay waa sharci kama naabixin awood ka bixin dambe waa jira waxa baaskareeyay baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliland baa 2/3 ku baaskareeyay madaxweyne kama bixi karo dii laga baxay baarlamaanka waa loo noqonaya marka waa sharci baarlamaanku saxay annaguna waanu ka baxaynaa iyo kamaana keena cabasho mid baanu salaana baarlamaanku wuxuu baaskareeyay qodobo waaweyn tirar
heshiis dhintayda oo tiirkaasi saa iyo saa loo macneeyo lama gaarin annagoo carabta waxaanu ka rabnaa la galnay tiirarkaa baarlamaanku baaskareeyey aanu furfuro waa intaa taana xaq baan u lehay marka waxaan ku jiraa inaanu furfuro tiirarkii uu baarlamaanku saxeexay masalan oo odhanaya baarlamaanku waddan la dhisaya kordoorka ojaaliya iyo berbera oo de intee leeg maxay yeelanaysaa ila waddadu 100 nooc oo waddo noqon kartaa soo maha iyo tiirarkii ay gudbiyaan wixii noo dhammaan doonayna inaanu dib u fasirno oo dee aanu heshiis ka galno dabcan nin walba dambulayda waa la isriixaya boroskaasaan ku jiraa waana hawl qaran waana transparent bay ahaanaysaa qalka halka loo maraya taas sidaad og tahay madaxweynihii ka horreeyey markuu guddi u saarayo arrimaha sixir bararka ee somalilan afeeyey wuxuu u xulan jiray wasiirada golihiisa wasiirada adiguna sidoo kale waxaad la qabatay golihii wasiirada walow ku jiro guddoomiyaha baanka dhexe bal ka waran arrintaas kalsooni tale baad ku qabtaa inay waddo saxa oo ay kasoo tala bixin saxa ay kugu keeni karaan maadaama golaha wasiirada aanay walow haynin arrimaha ka dhexeeya suuqa oo ay kaga habboonaayeen golaha iyo wakiilada ama guurtidii oo arrimahaas ay ka habboonaayeen mid aan isla garanno guurtidii iyo shacibkii iyo dadkii waxaa loo dhibay hawsha fulinta waa xukuumadda baarlamaanku ku daba jooga lama wadaaga hawsha fulinta waxay fuliyeen buu jeegalay oon ku saxaya halkaa kalsoonina midda kulama qabo horta oo yar waa kala duwanna wasiirada suuqa iyo sideena markuu shaqeeya anaga kulama qabo waa xogaan marka hore aqoon buu leeyahay dadkana waxaa lagu qoray shaqadan ay hayaan wasaaradaha ragga maaliyadda haya ama ganacsiga haya waa shaqo ay akaademikali diyaar u yihiin ay soo barteen ka soo baxeen dad magaalada jooga oo waay aragana way u haayeen fulin baan laga rabaa annaga xukuumadda waxaa wax ka qabtaa la leeyahay ka soo tala bixi lama odhan soo darsa lama odhan ka tala bixintii ciddii looga maarmi waayo aqoon ahaan waayo arag ahaan inta way la kaashanayaan tusaale iminka markii loo dhiibay iyagu ay arrintii ku jireen si lacageed ciddii koowaad la tashada waxaa jaamacadda hargeysa ragga waa aqoon badan way ka gudbeen waxay u tahay businessmanki dadkii dhaqaalaha hayay inagu imika waxaan nahay dad private-ka xoojiyey markaa dhaqaalihii dowladdu ahaan lahayd waxaa haya ganacsada labadu waana isla jaan qaada war siciir bararkan shirkadiina socon maayna waa de u baabiinaya qaray dowladdiina dhismayso hawsha inad gelin wad mayso qofkii caadiga ahaana uu bakteeya saddexdaa negative u leeyahy business manka weyn sicir bararka khasaara ku haya qarankana hawshiisma qabsanaya u kacaya qofkii caadiga hasiiskana uu dhimanaya wuxuu waaya wax cuno wada saddexdaa dhibateen waxaa lilaha yaa mas-uuliyadda koowaad leh xukuumaddu waa inay iyadu dhaqaaqdaa iswada keenta dadkii facilitation u angaadha marka ciddii aqoonta ay u baahdeen way kaabeen jaamacadda hargeysa iyo jaamacad kale wixii aqoonyahan loo bidayo rag kale aa joogo oo baaranka adduunka ay caalamka 20 dal dhaqaaladood bur ka soo shaqeeyey oo waaya lagu leh oo meel fog weyn xaaj cismaan baa ka mid ah sheekh salayaan baa ka mid ah business mankina shirkadihi ay khuseynayso dhan waa lagala hadla mid ay technology u saamayso siyaasaadka oo kale mid ay u sarreeyso xawaalada kale sida habshiir oo kale kuwa kale oo ku lug leh xataa waxa la gaaray dadka suuqa geerada ku sarreeyay arag waayo waxa taladu waa baadiyo cid haysa lama yaqaan waxay u raageen waa in intaas oo dhan xal keenta aynaan haddana hadhowta daba dhicin wali waa la sheegaya culays kale buu soo riqaadka kuwa factories baa jira koow laba saddex way jira dhibaatooyin badan sameeyay laakiin waxa lacagtan kaashka ah habeen walba aan bixino oo dee aan kooda mas'uul nahay riqaadkoona wada qolada ka shaqeyso qurma saara dhammaanteen waan walaana innaga lacag dirayna nin waliba shil ku jeebku haya xad ku talaabinaya marka hawsha waxay la tahay dadkaas waa dadkii hogaaminayay haddaad adiga laftaadu aqoonayso wax fikradaha xal oo mucjisad inoo haysana waa u baahanay arrimaha kuwadaas miyay ku jirtaa maadaama ay ka shaqeyso nabadeynta ama xiriirka Itoobiya in ciidamada Turkiga dib loo soo raro arrimaha wada hadal ugu dhameeyo maya Itoobiya iyo Djibouti bidna kalamaana maartana laba soo qaaday arrinta anaguna labana soo qaadin waxaana filayaa curfiga caalamka madaxweynaha martida u tahay hawlaha gudaha internetka aad ma fargeliyo
أنا ويتي بدي أرتدي مفرقين يمكن أرتدي فرقين وحلا كحاجة مفرقين دي اللي هو ماشي هذول سؤالك هو قدر يسوي هاي سؤالك ده وين حلسته حتى أنا أقول حب الله هنا والله هو حسن هيستند ده ما أنا أقول وايو مارك هنا بتاعنا عيوب قيشنا أماتين السؤالات بيننا وحنسكوا عدينا هو يينا عندكم حد قبل يينا كدولي يينا بلايا أبور دجال أسكال على أنت أول سكور أحسن السؤال ده معي لكن كده ما شفتيهم كسوة ورية هو حنا هذا الوضع وقلنتي حالك قدراي نقضته ورجينا مدبر تاريخ هذا قرعيدكم سومالان ورجع هذا كسوة بيك مرحين سووا تشوب من غفها ما أنت روح عليه ورحمة أنا أدرس كل دروبني أنا كلام ما هل هذه